السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنا وعن ونكسن داوديال كسر دوادا هالكني وقاموس إلين أكاديمي. قاموس ومضل وسهل يسا أرضا إنه لحيران قبرو ده برنامج كان وبرنامج عن قوة رئيسنا hadba aqoonyahanka markaas ay noo suurto gasho inaan fursad ku helno waxaan aqoonyahanka nooc cusub wax ka weydiinaa cilmiga uu soo bartay wax ku saabsan si uu talo iyo tusaale uga helo ardayga danaynaya takhasuska uu ku takhasusay aqoonyahankan waayahay barnaamijka waxaan ugu cusubman mid kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed Sahal Faarax Salaad Sahal ku soo dhawow Qaamuus Ilin Academy waa dhawahay sheene barnaamijkan aku dhawahay aad iyo aad u marka hore su'aalaha ay tala bixinta inta aanan u gudagelin waxaan rabnaa inaan ku weydiino bal xog yar oo kugu saabsan adiga warbixintaada magacaaga hore aan u sheegnay iskuulka aad ku soo baratay jaamacadda iyo dalka dibadda aad ku soo baratay ama dalka ku soo baratay noo soo koob horta aniga magacayga soo sheegtay Sahal Faarax Salaad iskoolkana waa iskoolka Imam Malik Primary and Secondary School aan ku soo waxbartay dugsiga hoose dhexe sare intaba asigaan ku soo qaatay aan meel uga bedelan sidoo kale arday dibadda wax ku soo bartay iyo jaamacadaha dalka mid kamid ah ayaa wax ka bartay qaasatan jaamacadda Muqdisho University aad barnaamijkan markasta waxaan ku wareysanaa qof ama heerka koobada jaamacadda dhameeyay ama heerka labaad jaamacadda dhameeyay si talo iyo tusaale looga helo adiga waxa laga fadhiyaa bal weydiimaha aan ku soo bandhigi doono jawaabahooda inay ka faa'iideen dadweynaha ku xiran barnaamijka oo u badan ardayda danaynaya takhasuskaaga oo kale balse ka hor waxaan rabaa inaan ku weydiiyo markii aad dhamaysay dugsiga sare iyo markii aad bilowday jaamacadda maxaa farqiga u dhaxeeyay mesela markii aad jaamacad ku biirtay mise والله أنا أسكول كمر كان دمي ساس أمسي سودان و أنت كفر ما ينجام على أنت أسمع أود حيثي هران قبل هذا حبر الشدة أو حبر شنو حكون في عنتها يخافك إنه سكلجونه هذا تي هركاكو أنت وياهي عروسي قشة وقول لك المركز محيي هاي مركز جامعة عندك كبيرة التخصص قاعد دورتها أنا في جامعة مقدشو المركز كدي ولا شيء فقلت ماني إيكونومي على مانجمنت ساينسك أزياء فقلت إيكونومي على مانجمنت ساينسك ودخلها هذه ضعف صومالي دوبيان كلام تاعونه واقرت دخلها مامولك maxaad ku dooratay kulliyadaas maadaama aad tiri waxaan ka soo bedeshay kulliyad waxaan hadana ku biiray kulliyad kale inay meeshaas doorasho ka dhacdan arkayna niyo markii si loo fiirsho dalkeena wixii ka dambeeyay sagaashimiinkii sagaashii koodii iyo dawladda xilliga ay dhacday dalkeena wax walba uu waayay anigoo fiirinaya dhinacyo badan IT-ga markaa baranayo waxaan u baranayay dana shakhsiyeed haddana isla ayadana maadadan waxaan u baranayaa dana shakhsiyeed sidoo kale maadadan economiga waxay iga fursado badneed maadada kale oo maadadan faculty economiga Akademiyada Qaamuus Ilaanin fogaan wax ka dhigasho ku fududaynaysa inaad wax walba aad danaynayso aad barato adigoo gurigaaga jooga Qaamuus waa kaalin waxbarasho online ah looguna talagalay kobcinta iyo kor u qaadista aqoonta baraha iyo barayaashaba sidoo kale u diyaarinta qalinjabiyaasha siday u abuuran lahaayeen shaqo waxaana Qaamuus oo kugu gaarsiinaya tubtaas casharo iyo tababaro ay bixinayaan barofeesaro iyo macallimiin khubaro ah kana kala socda dalal kala duwan Qaamuus waxa kale oo ka shaqeeya la talinta hagida iyo hababka ugu habboon ee qofka ku gaari karo hankiisa iyo hiigsigiisa ku dooro kaalin fogaan dhigadka Qaamuus koorsooyin dhammaystiran barayaal khibrad u leh maadooyinka ay dhigayaan koorsooyin dibloma shahaadooyin rasmi ah oo caalami ah Qaamuus u doono koorsooyin takhasus walba leh la tali lana tasho Akademiyada Qaamuus Ilaanin waayahay fursadaha waa ku weydiin doonaa isbedel baa yimid kulliyad baa ka baxay mid kale ku biirtay waliba isma qusayaan laba kale yihiin haddaba tii hore waalid baa ku dooray ma adiga doortay maxay xagga doorashada labadu madii ka yimaadeen mise waa kala duwanaayeen waa aniga horta waalid ugu cadaadinayay ma jirin oo xagga doorashada labadaba aniga ahayn
qofka ardayga markuu iskoolka u dhameeyo waxba u qorshaysanaa aniga waxaa ii qorshaysnaa 3 faculty ay qorshaysnaa laba kamid ah ay ahaayeen labada aad gashay midaad ku guulaysatay inaad dhamayso waa yahay waxaan ku weydiinayaa markan ardayga raba in uu kulliyad dhigto gaar ahaan qayb gooni kaga sii takhasuso maxay tahay ama miyay tahay codda loo baahan yahay inuu kala tashado horta markii ardayga la fiirinayo ama arday laga hadlayo wax uu dooranayo waxa aad iyo aad muhiimada loo saaraa meesha uu ka soo baxay ama akaadimiyada uu ka soo baxay doorashada imaatana waalidka kama marnaanayo ardayga hadduu rabo inuu faculty doorto waa inuu macallimiintiisa khaaska ahayd wax soo baris intaas sano uu ka warsada uu yiraahdo ilaa ay ka warga asagana waa iska war og yahay maadooyinka uu ku fiican yahay asiga laftirkiisa uu dareemi karaa hadduu asiga isdhaa maadooyinkaas uu ku fiican tahay inuu waalidkiisa u bandhigo yiraahdo bal ka waran maadooyinkan ku fiican facultygaas ka waran ay sidaas ugu dooraan waxaa jirta dabeecad Soomaalideena aan la isku ceebin oo la fahamsan yahay macallimiinta la garay oo aqoon-yahano waa macallimiin laakiin waalidiinteena badankood ayaga maaha badankood waa dad aan heerka waxbarashada dhalinyarada kala soo maraan aan soo marin marka taladooda waxay saameyn ku yeelanaysaa ardayga mase mudan yihiin inay kala taliyaan ama ay ku xataa ku dirqiyaan maxay kula tahay dirqin haday meesha imaato oo waalidku uu adeegsado awoodiisa waalidnimo xagga ardayga waxa ku dhacayo neglect wax la dhaca ama dayacnaan imaanayso oo qofka awal wuxuu leeyahay waxaan waalida ku qasbayay ugnigi samaana niismeen jirayso saameyn caynka ku yeelan kartaa marka negative waaye hadii qofka wax lagu qasbo uu ka marnaana waa weel faaruq ah biyo ku weel duleelada biyo ku shubayst aad marka tala ahaantu waxay tahay marka in dhalinyarada ama qofka wax baranaya khiyaar la siiyo khiyaar inuu siiyo ardayga wax baranaya oo soo waxba daqda uu ku saarin faculty-ga iyo waxa maadadaas uu ku sii takhasusay ilaa qofka jooskiisa asay u furan tahay inuu wax baranayo marka sida hore uu sheegay qof walba waxaan ka wareysanaa takhasuskiisa gaarka ah adiga economic and management taa dhaqaale maamul ah adiga oo la talinaya ardayda raba sidoo kale inay bartaan economic and management inay bartaan raba maxay tahay waxyaabo looga baahan yahay in la yimaadaan waxaan ani tala ahaan ku dhiibi lahaa ardaygaas looga baahan yahay waxay tahay inuu horta kooda hore ka diyaarsan yahay maadooyinka xisaabaadka inuu ka diyaarsan yahay xagga luqadiisana waa inuu xoogaa ka roon tahay sida hadda ardayda ay yihiin oo caadada u ah sida caadada ay hadda yihiin waa inay ka roon tahay